بسم الله الرحمن الرحيم. مركواد وحان سلاميا dhammaan marti sharafka iyo qaban qaabiyaasha oo ugu horeeyo marti sharafka halkan jooga senatarkeena senator Dufle agaasimayaasha isbitaalada dhammaan ka soo qaybgalayaasha dhalinyarada dhaqaatiirta iyo maamulka Life Belt iyo BBS galab wanaagsan waxaa runtii sharaf ah in maanta idin kala soo qayb galo maahan markii ugu horeysay runtii waxaan u taaganahay 14 June kaliya ma ahan in maalin kasto dadkeena Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo wacyigelin joogto ahna ay tahay dhiig bixintu wax u baahan community-gana u baahan yihiin mar walba in la gaarsiiyo in baahida jirta iyo kaydka aysan isku dhigmin saala socotiin isbitaalada nimbow nafta isbitaal kasta wuxuu sameystay unit u gaar ah oo uu ku maareeyo baahiyaha dhiiga ee isbitaalkaas bukaanadiisa ay qabaan haddana mid kasta midka kale way saacidaan intii xad ah dhalinyarada isxil qaantay oo Dr. La mushkila ugu horeeyo runtii waa uga mahad celinaa asiga iyo dhalinyaradii saaxiibadiisa ah sida ay si volunteer isxilqaan ah ay u sameeyeen muddadii 4 sano la soo dhaafayna ay runtii haqabtirayeen baahida bulshada oo taleefankooda habeen iyo maalin u furnaa إن شاء الله وحرجينا إن مردو لهرجلين دونه أما لقلا وريج دون مسؤولية داس أو حرونتي ناشنال بلاد بنكي إن شاء الله وميل في عن مرة يهديان وربحين إذا كسيو أين نقن دونان حرونتاس إن هرمود ونقدان لو أول مريو إن حرونتاس أي أيجا إن ونقدان ما دام أي شلي أيضا حرون جرين أي أستاجين إن شاء الله ورجينا يا sanadkii 2017 14 October qaraxii markuu dhacay waxa la socotay in magaalada dhan ay isku wareertay oo la kala garan waayay baahida iyo qof walba meeshii uu qaban lahaa isbitaalku uu aadi lahaa qof walbana mid ka daran la siinayo dhiiga say u kala rooyihiin bukaanada loo kala horumarinayo say u kala daran yihiin marka waxa ka dhashay aragtida ah in loo baahan yahay National Blood Bank maadaama caafimaadka wadanka iyo isbitaaladii ay soo kabanayaan oo wadan burbur ka soo kabanayaan ahayn runtii wasaaradda caafimaadka waxay u istaagtay in iyo markaas xukuumadda waqtigaas jirtay in la helo ama dib loo soo celiyo Somali Blood Bank xarunteedii nationalka ahayd in la dhiso ayadana waqti ay qaadatay waxa la dhagax dhigay 2 sano kadib 2019 ayaa isbitaalka Banaadir laga dhagax dhigay oo dhul isbitaal Banaadir uu ku deeqay maadaama xarumihii loogu talagalay asalka ahayd laga bixin waayo familo oo runtii duruufuhu ay saamixi waayeen inay guri kireystaan laakiin dawladdu ay ka wareegtay laakiin la go'aansaday isbitaalka in dhul laga siiyo 2 sano kadib ayaa hadan waxay noqotay in fan loo raadiyo sanad kadib hadan waxay noqotay in dhismihii ay bilaabato alxamdulillah maanta waxaan rajeynaa qaar kamid ah inay arkeen in buildingkii uu taagan yahay shalay ay ugu dambeysay wafdi caalami ah oo deeq bixiyaasha wadamada Europeaniska ay imaadeen UNFPA runtii oo door weyn ka qaadatay iyo wasaaradda caafimaadka soo booqdeen xaruntana ay meel gabagaba marayso waxa ka dhiman ay yihiin items materialska ugu dambeeyay muraayadaha iyo daaqadaha buildingkii laakiin uu taagan yahay capacity-giisana uu insha Allah fiican yahay ilaa xad laakiin kuma filna hal blood bank oo national ah kuma filna wadanka marka insha Allah aan ku bishaareysano sidii aan isku garab taagin lahayn u diyaarin lahayn dad bixiya dhiig oo ayaga aan la raadin oo aan xarumaha laga raadin ayaga soo istaaga insha Allah waa heesanaa dhalinyaro maanta ayagoo meel heesan meel kireystay dabcan ma u maleynaya in la raadin doono dad dhiig bixiyaal ah maadaama aan heesano dhalinyaro already isku daygaas sameysay marka insha Allah taala waxa rajeynaa sanadkan dhamaadkiisa qalabkii loogu talagalay oo WHO guidelines-keeda waxeeda dhan lagu dabaqay in process-keeda uu ku jiro rajeynayo bilaha soo socdo in laga gaarsiin doono in si degdeg ah uu u furmo insha Allah taala wasaaradda caafimaadkana runtii aad isugu hooshay waliba bilihii la soo dhaafay in wax gaab ah uu san gelin maalinta dhismahaas bilaabay ilaa iyo hadda muddo sanad ah si xooliyo ku socda dhismaha
qofkii arkay oo ereyada banaadir taga yaqaano wali wuxuu saaran yahay meel u dhaxaysa isbitaal Madiina iyo banaadir cornerka isgoyska ayuu saaran yahay marka waa bidil la arki karo aad dhihi karto dadkii lagu badbaadi lahaa insha Allah taala waa meel xarun bulshada indhaheeda ah aan ka wada qayb qaadano bulshadeen aan gaarsiino runtii way jirtaa tan ah haddii aan dhiig bixiyo waan dhimanayaa maalin kasta isbitaalada nagu qabsataa inaan ka dhaadhicin weyno in familkiisa uu dhiig u shubo subxaanallah laakiin gar uu leeyahay waa in laga dhaadhiciyaa loo sheegaa mararka qaar dhaqan ay gashaa dhaqankeena ma bixin kara dhiig ku leeyihiin saakay isbitaalka waxaan ka hirgelinay dhammaan in dadkii shaqaale intii la heli karay dhiig bixin kartay shuruudaha ka gudubta inay dhiig bixiso aniga xataa waxaan isku dayay inaan dhiig bixiyo laakiin HB-gayga 11.7 noqday laakiin waan jeclaa maanta anigoo dhiig bixiyay inaan galabta idin kala soo qayb galo halkan waa rajeynaa gabdhaha post sawir aan saaray Facebook-gayga gabar dhiig bixinayso shaqaalaha ka tirsan markaan saaray su'aalaha ugu badan waxay ahaayeen gabar dhiig ma bixisaa bil kasta shubtaan nagula heystaa xataa nooma ogoladin dhiig inaan bixino oo sadaqa ah marka wacyigelintaasna waa rajeynaa in la badiyo oo Faadumo iyo tiimkeeda aan iska garabsan doona adoo Ilaahay yaraado salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii xagga dawladda nooga aadanna hadda hormuudkeena jooga insha Allah taala sanatarkan ku wareejina insha Allah salaamu calaykum